waxaan kale u sheegayaa dowladaha ku nool gobolka Sool dhammaan idina sidoo kale hambaliyo waxaan rabay dhowr arrimood saaka in halka ka hadlo ama dad qurbaha iyo dhulka intuu joogo dad halkan jooga la soo xidhaliya saxaafad noo qabta oo taageerayaashan ama xildhibaanaan nahay hana la taageero arrintaas waxaan u sheegaynaa arrintaas Soomaaliya halkan kama shaqeyso qofkii taageersanay ama kii xildhibaan doonaya ama kii uu ololeynayo halkan lagama soo doortay meeshii laga dooranayo aad inta qofkii aan yeelinay hawsha ku sii socda inaan talaabo sharci ka qaadayno arrin soconaysana aysan ahayn u sheegayna hoteelada lagu qabanayo xafladahan oo kale hadii ayba dhacdo hoteeladu inay arrinta ka fiijignaadaan waxyaalahan la daabacayo yani daabacaada ah waraaqahan la daabacayo inay ka fogaadaan shirkadaha hawsha daabacaya u sheegna hay'adaha gobolka ka shaqeeya gobolka hay'ado badan baa ka shaqeeya hay'adaha gobolku saddex qaybood bay kala jaban yihiin hay'ad xafiis ku leh degan oo la yaqaan xafiiska degan tahay iyo meesha degan tahay mid ka shaqeyso aan xafiis ku lahayn oo timaada oo iyana loo geeyay laakiin ka shaqeyso wax badan ka qabata mid aan xafiisna ku lahayn ciiday u timaadaan aysan jiro meelaha intay wax ka qorqorato dadka tuulooyinka iyo deegaamada ay tagto iyadu say doonta ay yeesho waxaan u sheegaynaa taan xafiis kale inta waxaan leenahay gobolka xafiis ka furo maadaama aad ka shaqeysid tii aan xafiisna ku lahayn cid ay soo marto ogina aysan jirin meelaha tagta deegaamada tagtana dhuumaalaysiga ku soconaysana marka idina waxaan leenahay dib isugu noqdo oo bal sidii idinka idin la qurux badnaata soo yeelaan idin leenahay maanta